maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona isku soo socon wanaagsan bismillaah wali waxaan ku jirnaa barnaamijkii ahaa tababarka tababarayaasha ama macallimiinta oo aysan ahayn kaliya in maanta aan casharo badan oo ku saabsan physics aan lagu baray laakiin ay tahay kaliya habka aan isleenahay ugu fiican ee manhajka cusub ee raba ardada inuu gaaro oo hab isku wada mid ah dhammaan maadooyinka marka maadadan waa physics waxaan soo qaadanay chapterka 4 iyo chapter 5 waxaan galeynaa chapterka 6 sida caadi ahaanna saad ogtihiin chapter kastana markaan ka hadlayno wuxuu ka kooban yahay section soo socda koow ah inaan ka hadalno objectiveska chapterka uu leeyahay ama ahdaafta contentiga canaawinta ama lessonska chapterka inaan ka hadalno method of teaching oo macnaheedu ay tahay dariiqada ugu fudud ee ardayga lagu gaarsiin karo afar activities oo ah nashaadaadka ama waxqabadka iyo mid oo ah assessment qiimeyn waxa aan sheegnay saan u qiimeyn lahayn emailada uu ka heli karo resource chapterkan 6 waa moment of force dabcan moment of force ama torkan waa lii jiray hada xustaan waa xoogga maroojinta maxaa la dhahaa maxaa loo isticmaalaa center of gravity maxay tahay stability-ga maxay tahay waxyaalahaas oo dhan ayaa ku jira marka qaybahaas oo dhan ayaa laga hadli rabaa insha Allah waxaan ka bilaabaynaa saan hore u sheegnay objectives waa maxay ahdaafta uu ka kooban yahay chapterka 6 oo ah moment of force ahdaafta saan sheegnay waa maxay waa waxa ugu muhiimsan ee arday inuu gaaro waa points kala inay ardada helaan waxa kamid ah moment of force maxay tahay inuu ardayga sheegi karo ardaygaas describe the moment of force maxay tahay waana sharxi kartaa labo apply moment of force moment of formula to solve some numerical problems moment of force waxa leedahay qaacido si loogu xalliyo problemada soo socda principle of moment of force waxa jira qaanuunkii hada taqaanaan oo CSO-ga principle of moment of force hada xoog shay la saaro si wax u noqdaan stable u noqdaan principle-kii jiray the concept of equilibrium and stability state some application of stability marka objectives kan marka hadaf aan ka leenahay maxay tahay macno objectives kan waxaan rabnaa ardayga in waxyaalaha la rabo inuu gaaro ay tahay maxay tahay moment of force sidee looga shaqeeyaa moment of force maxay tahay principle-ka ama law-ga moment of force qaanuunka ma maxay equilibrium maxay tahay equilibrium sidee equilibrium lagu helaa maxay tahay waxyaalaha shay ka dhigi karo more stable hada fiiri hal luq hadaan ku istaago waa dareemi kartaan ilaa meeqa saac luq ku istaagi kartaa waa daalaysaa okay luqti laftirkeeda hadaan kaga istaaga labada far ugu horeysa ka warama waa ka sii daranta sulma ku istaagi karaa may intaas waxay tilmaamaysaa stability-ga tilmaamaysaa waa in ardayga fahmi karaa ardayga hadduu laba luq ku istaagay hadduu fadhiyo hadduu jiifto keeba more stable u yahay waa inuu fahmi karaa qof jiiftay qof fadhiisay iyo qof taagan which one is more stable qofka jiifta more stable labadaba taagan iyo fadhiyaba waxa dhici kara inay dhacaan laakiin jiife ma dhacaba waa more stable center of gravity is guduhu ku jira marka waa inuu helaa marka waxyaalaha loo isticmaalo applicationska oo stability waa inuu fahmaa ardayga waa in si practical uu fahmaa waxyaalaha oo common oo dal magaaladiisa uu ka helo inuu isticmaala baabuurta kale
contentiga jabtarkan soo ujeedaan wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood qaybta kooda ujeedaan waxa waaye turning effect and law of moment turning effect and law of moment waa qaybta koowaad ee raba inuu fahmo qaybta labaad waa maxay wada ujeedaan waxa waa couple xooga oo lamaanaha ah waa laba xoog oo isku mid ah laakiin haddana they are different direction waa two force equal like and unlike direction ka waa isku mid magnitude like direction ku center of gravity ardayga asagoo taagan ma dhici kara nacam hadduu hadda hal lug intuu ku istaago oo lugta kalena u saan dhaha oo kor u qaado waa dhacaya sabab maxay laana centerka waxa dhaa qofka dhexdiisa ku jira laakiin marka uu lug kor u qaado the center will be out hadduu noqdo maxaa dhacaya topple down gab ayuu leeyahay marka waa inuu fahmaa ardaygu maxay tahay center faa'iido laga leeyahay maxay tahay equilibrium dheelatirow maxaa tahay waa 10 dhan oo dheelatirka wuxuu yahay sida dheelatirka lagu helo qaybahaas dhan waa inuu fahmaa method of teaching dariiqooyinka aan rabna in lagu baro ardayga waxaa ka mid ah saada aan sheegnay project method waxyaalaha aan rabno waa ardada inaan xooga saarno ardadaynu waxay leeyihiin nidaam waxbarasho oo isku mid ah laakiin haday helaan wax badan ay keen lahaayeen mashaariic ma ahan mashaariic waaweyn ma ahan simply from simple inuu ardaygan wax asaga uu sameeyo oo mashruuca uu asaga keena barnaamij intuu bilaabo dhamay waxaan ana sameeyay mashaariic project method inuu xataa keena waxyaalaha more stable wax ka dhigi kara baabuur ha noqdo ya misalada bajaajka kale saddex lagu ay leedahay hadduu fikro ardayga aad u fikro oo dhaha bajaajka waxa ka dhigi kara more stable ama 4 lugaan ka dhigaya ama 5 lugaan ka dhigaya ama macnaha waxa way wax bay fikirayaan maalin kasta wax bay keenayaan mashaariic in loo diro ardada stability ga badin kara waxyaalaha stability badin kara inay helaan waxa kamid ah method of teaching ka question and answers in ardayga su'aalo aan weydino ay weydiyaan macallinka fasalka soo galay meeshu wax ka bilaabi lahaa istaag adiga yes casharka dhan wuxuu ka dhigaa question and answer query method waxaan la istaag hebelo hay waliga ma aragtay moment of force macallin ma arkin waliga tuba ma furtay hawa fur maxaa ku furay sana orange albaab xiran ma furta ha sana fur sana xir waxyaalaha simple ka meel maxalli jiray koob xiran ma furta ha sana fur hadana sana xir clockwise anti clockwise marka ardadii wixii markii looga dhigo wax very simple ayaga ay gacmahooda ku sameyn karaan way fahmi karaan su'aalan weydii waxaan iri miis ama kursi baan soo qaatay ya qof inta fadhiisi qofka daanta fi kursi kor u raacaya dhag u leeyahay hay koob kale inta fadhiisi waa more stable noqon marka waa inuu fahmi karaa marka stability gaas waxyaalaha keeni karo waa inuu fahmi karaa okay dariiqada ugu dambaysa waxa waaye participation method marka ardada waxaan rabnaa in ardadii casharkaas la sharxaaya inay qayb ku lahaadaan oo ay fahmaan wax sheegaan shardi ma wuxuu sheegaa inay sax noqdaan bini aadan waa laakiin wax markuu khaldo marka dam asaasay doon marka in ka qayb qaadashada inay bataan ardada in xuquuqdooda la siiyo in casharka loo wada dhamaado ya marka wax la qaybsanayo waa aragtaan waa in loo wada dhan yahay salama dhaha ardada fasal ku jiro casharka waa inay wada dhan yihiin nin kastaba qaybtiisa waa inuu qaataa
su-aasha uu ka jawaabaa wax ku soo darsada contribute nin kasta waa very important qof kasta meesha ku jira afartaas darbi ku jira waa muhiim casharkaasna inuu fahmana waa muhiim marka afartan waxa saddexdan hab aan isleenahay jabtarka inuu ku bixi karo in ardada mashaariic aan u dirno in su'aal iyo jawaab aan ka dhigno in ardadii dariiqo ah inay ka qayb qaadasho afkaar fikirka uu ku jira waxaana la dhahaa kana la dhahaa wax soo bandhiga ardada in activities ka aan galna marka jabtarkan macallimiinay waxa uu ka kooban yahay 6 activities ay ka kooban yahay waxaan soo qaadanaynaa 2 ka mid ah مثلا وأدو جيدان أرضه وحن ويديني ويكش قينايا بالكم واتقانا أما قارق عنده وكان وحلو قاضوه وحلوش يلا محله جري قعمة دار الله يلا قارق عن كستفيري لو قعنو دار وليه ما قعمة دار لو سمي محلو قاري وانا كفكرة why the wheelbarrow was made with long handles marka haday aad uga faa waxbay keenayaan qasab way gaari way yaqaanaan way arkeen dabcan isticmaalaan laakiin meesha fikray ka dhalnay kooxan ka dhignay markaas waa ku celinaynaa kooxan u qaybinaynaa koox kasta waxay lahaanayaan koob waxay lahaanaysaa team leader waxay lahaanayaan note taker waxay lahaanayaan presenter waxaan niri randomly selected sababtoo qof kastana waa equal chance oo inuu lahaada ma rabno qofka ugu cod karsan ugu fiican inuu soo jeediyo waxaan markay ka doodayaan waa inay si equal hadhow hebel istaag adig soo jeedo waxa la kala labo why it's easier to tight or loose and not using spanner with long handle than with short what aragteen ball hadii ball yar meel lagu xiray kiyaaba dheer ee kiyaaba gaaban waxa fudud mid ka dheer in isla markiiba lagu waro xiri kara la kiyaaba gaaban lagu xiri kara kiyaaba markuu gaabto waxa waa dareemi kartaa waxa waa dib weyn ayuu ku qaadanaa sabab maxay tahay waa momentiga way ka fikirayaan ya meeshan turning pointiga distance-ga markuu dheeraado dabcan waxay fahmayaan distance duu dheeraado xoogaa yaraanaya distance haduu gaabto xoog badan u baahan tahay arda waa inuu fahmaa albaabku aragteen albaabka fiiri xiran marka la furaayo gacanka iyo meesha albaabka safeexada way kala fog yihiin laakiin meesha la qabana hadii loo dhaweeyo oo la dhaha laga soo jiido ama laga xiro xoog badan u baahay laakiin fiiri marka la jiido hal mar la qaban dhag asaa soo furmay dhag asaa xirmay markasta markuu inuu fahmo ardayga meeshan turning pointiga iyo maxaa dhihi jiray iyo meesha gacanka haday aad u kala fogaadaan xoogaa yaraana haday soo dhawaadaan xoogaa badana wixii waa in ardada aan ka dhalinaa marka waxyaalaas waa in ka dhalinaa labadan activity ba ayaga ka shaqeynaya koox loo qaybinaya way fikirayaan dooday keenayaan natiijana ka dhalin doonto waa kana marka steps-ka aan raacayna macalinka ardada wuxuu u qaybinayaa group kasta wuxuu siinayaa activities ardada maxay sameynayaan ardada dhaxdooda waxay sameynayaan way doodayaan kan walda wax bay sheegayaan maanta oo dhan dooda dhacaysa okay activities kala marka kan activities kan macna waxa fiican inay ardada si practical fasalka ugu sameeyaan wuxuu ka hadlayaa equilibrium ka hadlaa stability-ga shay goormo dhici kara goormo se dhici kara hadii aad aan sharaxo waa wax fudud faham stand straight with your heel back and head against the wall bend forward from your waist keeping your heels and bottom against the wall to touch your toes. Can you do this without toppling over? Explain why and what you. معلو أرضي دربي استاجيا ماذا في دربي ساريا لو كل جنايا أصوصا أتهجنا وحال ربا إنه
been sameeyo kadibna suulasha uu qabsado ma dhacaa mise ma dhacaa inuu ogaado bas practical waa inay u sameeyaan ardayga darbigu isku dhajinaya madaxa darbigu saaraya asoon soo sikadeen hore u sikadeen waxa la rabaa asoo meeshiis taagan inuu sidaan yiraahdo maxaa dhihi jiray labada suul qabto hadduu dhaca macnaheedu meesha wuxuu ka fahmayaa center of gravity inuu out noqday hadduusan dhicinna maasha allah waa tijaabo marka la samaynayo arday hataa dhowr arday inay sameeyaan si loo ogaado oo center of gravity-ga waxa la dhahaa markuu bannaan ku dhacana qofku dhacaya hadduu gudaha ku jirana ma dhacayo. Okay, the teacher gives each learner to make this activity. The learner will demonstrate in the class. Fasalkan uu soo bandhigaya. Okay, waxaan ka hadalnay marka habka ugu fiican ee maadada loo qiimeyn karo waa sheegnay ee aan dhahana ee lagu soo bandhigi karo. Waxaan sheegnay activity-di la rabo ardada inay sameeyaan. Waxaan galeynaa marka qiimeyntii. Marka hore qiimeyn waa ka hadal qiimeyn waxaan sheegaynay maanta oo dhan qiimeynta waxa ay tahay laakiin waxaan leenahay qiimeyn maxaa la dhahaa a process which follows a set of 4 components. These 4 stages or components are plan, do, check, and act. It's a process to evaluate the student's performance. waxa ugu muhiimsan waa inta ardayga waxa la rabaa wax qabadkiisii in la qiimeeyo. Assessment kastoo la samaynayo maxay tahay waa inaan macno sameynaa plan. qiimeynta waxa aan wax ku qiimeynaya marka hore waa inaan dejiyaa componentigi waxaan ku waa inaan marka hore dejistaa balaanki qorshe waa inaan dejiyaa kadib maxaa dhacay marka waa in la sameeyaa haye waa saxidi kadib waa in la falgel intaan waa plan do check and act waxa aan sameynayno waxa waaye performance ardaygaas aan fiirinaynaa lama rabo marka in maskaxdaada wax ku jira aad qiimeysid laakiin marka hore lesson kasta waxa aan ku qiimeyn lahaa waa inay ii qoran yihiin si arday su'aalaha aan weydiiyo ama ha noqoto waxaan u diro waa inay ii qoran yihiin qorshaha waa in marka hore la soo dejistaa waxa kamid ah marka observation of the obtaining evaluative information through direct observation. Okay, kan waa marka hore waa si joogto ah in loo fiiriyo mulaaxadaad waxaan niri macallin marka ardadaas activity loo diraayo hadduu macallinka meel iska fadhiisto oo iska mashquulo ama uu khad iska galo ama mobile iska isticmaalo ama hadhow marka ardada waxay dareemayaan inaan la kor joogto aan lagu ayn hawsha marka waxay dareemayaan inaysan waxa macna aysan lahayn laakiin macallin markuu ag taagan yahay uu dhex socdo uu fiirinaayo uu ardayga khaldan qabanayo macnaheedu nuxuray lahaanaysa shaqo fiican la qaban karaa su'aalo in la weydiiyo wax in loo diro xog loo diro dhammaan waxay ka mid tahay qiimeynta ka mid tahay marka meeshaas waxaa noogu dhamaaday chapterkii 6 oo ah moment of force waxaan galeynaa marka chapterkii 7 ayaan galeynaa waa chapterka ugu dambeeyay chapterkan wuxuu ka kooban yahay saa u jeedaan waa work power energy and simple machine work oo hawshi iyo maxaa dhihi jiray powerki energy simple machine afartan ayuu ka kooban yahay chapterkan chapter kasta waxaan niri chapter kasta oo ka hadlayna muxuu ka kooban yahay number 1 waa maxay objectives oo ah ahdaafta ama ujeedooyinka guud oo chapterka leeyahay laba maxaa ku xigaan niri method of teaching aan dhaha laba cafan content عناوينته كوكوبية سدح معي تاي method of teaching أو معناه ذا تاي حبكة وقفي عن أرداس لو قارسين كان 10 محاكو إيجاي activities وحقبض يدا بوجو كجرودن إن محوها أرداس ذا وسمين لهاين لا شك محا assessment قيمين وح أنصاص سمينه 10 دي activity دي إن القيمية وإنه أرضي جاري إن كانت إن هوبيو haddii aan ka bilowno marka objectives waa kana ardaygu waa in uu macnaha waa inuu yaqaanaa macallo chapterkan ama lesson-kood markuu dhamaado ardayga hadduu garan waayo macnaha waad ku celinaysaa waa objective koowaad arab inuu ardayga fahmo waa maxay tahay hadduu fahmi waayo macnaheedu waa maxay marka waa inuu ku celisaa
hadduu xisaabin waayo waag hadduu calculate garan waayo w waa waag waxaa lagu helaa f times d f maxay tahay force d waa my distance haddii sanduuq meel aan dhigo oo xoog aan geliyo oo intaas ah oo u dhaqaaqo distance intaas ah wixii hadduu shaqayn waayo macnaheedu waa maxay weli ma fahansana calculate waa application show the concept of energy and their types energy maxay tahay xiriirka ayada dhexdeeda noocyadeedana maxay tahay waa inuu garan karaa waa application ku xigo explain the concept of power waa explanation objective keena waa describe the meaning of energy waa objective kale waa use the concept of energy waa objective differentiate waa objective yadan waa in la gaaraa haddii la gaaro waa lagu celinayaa waa cashar waxa dhan ee la raba in laga jeegareeyo casharkan wuxuu ka kooban yahay 4 xabo work power energy iyo simple machine intaasuu ka kooban yahay waa content ama lessonska saa ogtiin waagaas wuxuu lahaan doonaa specific objective wuxuu lahaan doonaa activities wuxuu lahaan doonaa maxaa la jira lesson exercise uu lahaan doonaa kana sidoo kale power wuxuu leeyahay specific objectives wuxuu leeyahay lesson activities wuxuu leeyahay lesson exercise mid kasta intaas uu leeyahay method of teaching hababka oo aan ku dhigayno marba habab kala duwan hababkana waxaan hore u sheegnay waa maxay waa hababka ee la rabo maxaa la jiray ardayga inuu yahay udub dhaxaa hababkii hore oo ah macalinka inuu udub dhaxaa waa laga tagay oo macalinka inuu hadlo macalinka wax sharaxo macalinka dad wax fahansiiyo macalinka wax qiimeeyo macalin ardada ay noqdaan dad film daawanayo kala macnaa riwaayad ku jiro waxbarashadii ahayd film ama riwaayad waa laga joogo ama muxaadara waxaa la rabaa ardayga hadda inuu asaga dhankiisa ay wax ka yimaadaan oo ay macalinka gaaraan macalinka uu shaqooyinkiisa noqdo bas preparation iyo wax diyaarin iyo maxaa la jira ardadaas inuu haga laakiin waxa ugu badan ee afkaarta soo saaraya wax qabana ay noqdaan ardada marka problem solving method inaan ka dhigno hab ardayda ay wax ka shaqeyn karaan experimental method waa maxay waxaan yiri habkan waxa la dhahaa waa dariiqada ah in ardayda afkaarihii ideaskii iyo maxaa la jiray inay u bedelaan waxyaalo oo real life ah inay ka dhigaan ayaa waxa la dhahaa maxaa la jiray experimental method discussion method ardayda inay niqaashaan ardayda dhexdooda ay muxuu ahaa dooda galaan ay wax soo saaraan marka discussion methodka maxay tahay waa habka ardada inay doodaan oo ruugaan oo jijibiyaan si meesha ay nooga soo baxdo wax aad u wanaagsan si meesha ay nooga soo baxda waxa la dhahaa discussion method role play waa qaybta kale oo maxaa hababka la rabo in wax lagu qiimeeyo marka meeshaas marka xoog waxaan saareynaa in ardaygu uu noqdo udub dhaxaadka inuu noqdo la rabo in muxuu ahaa udub dhaxaadka la rabo ardayda inay ayagaas wax badan soo bandhigaan activities jabtarka 7aad ee jabtarka ugu dambeeya ah wuxuu leeyahay marka activities wax qabadyo ayuu leeyahay wax qabadyada jabtarka waxa kamid ah koosa u jeedaan horta wuxuu leeyahay jabtarkan 23 activities marka macallimiinay sida hore u sheegnayba xooga waxaan saaraynaa maxaa dhihi jiray xooga waxaan saaraynaa in ardadaas wax badan ay qabtaan wax qabadyada ugu badan waad u jeedaan waa 23 activities activities can be organized in classroom sessions which are group of learners can take the role of atoms or molecules to study the chemical reactions and they can represent scientist group to demonstrate the particular scientific law. Activities can be organized in a classroom sessions. وواحد ربما مرة قاركون إن كلاس كلو قبته. A group of learners can take their role of atom. كوفين role كatom كي قبنايا. أما role كمولكيول ده. سيو قادان chemical reactions or they can represent scientist group to demonstrate the particular scientist law. وactivity واحد وياه.
A student is standing still and holding a heavy pile of books. Did he do a work? Waa activity. Arday baa buugag badan buu qaatay. Culays wuu hayaa, shaqo muu hayaa. Waa inay aan ka fikirnaa marka arday ay ka fikiraan ardaygaas inuu shaqaha in kale tuwan aad looga fikiraa. Nin buug badan haya, shaqo muu wada, shaqo ma wada in laga fikiraa. Steps kan raacana waa maxay? Learner will discuss in group to do these activities. Qof alaab culus wada ama buug wado arday istaajinaysa dhowr buug loo dhiibaya waa qabanaya shaqo muu haya mayaha ayaa kala badooda natiijo ka soo baxaysa meesha doodaas waxay noo imaan marka dood natiijo noo soo baxayso natiijo wax ku oola noo soo baxaysa qofkan shaqo muu haya ma shaqo ma haya. Our everyday activity, we use energy in a form of other, and there is no energy to all activities will come to stop. What activity can? Meel kasta waxaan u isticmaalnaa energy. Hadduusan jirin energy wax kasoo istaagaya inay ka doodaan. Shaygan macnaa wax kastoo shaqaynaya waxaa shaqaysiinaya tamar. No energy, no work. Everything will be stopped. Dag wixii dhan waa jobs. Inay fikiraan la marka. Ay niqaashaan group, doodaan, discussion, qof la doorto, qof wax qoro, qof soo jeedi, afkaar ay keenaan. Cilmi baa ku jira ardada. Learner will work and discuss together to do these activities. Sida u jeedaan mar kasta xoog waxaan saaraynaa ardadu xoog waxaan saari doonaa hadduu ilaahay yiraahdo mar kastaba assessment laana objectiveska ay qaateen contentiga ay qaateen methodology ay qaateen activitieski la baray ayaga ay sameeyaan waxaana qiimeyn assessment ba u baahanaa waa maxay assessment marka assessmentiga waa maxay waa wax aan ku qiimeyn rabo casharkii chapterkii activity-yadii wixii inay fahmeen aan ku qiimeyn rabo waxa la dhahaa assessment waa kana marka waxa ugu horeeyo observation tooliska waxa kamid observation observe maxay in si gaar loo eego maxay qabanayaan wixii ma ka shaqeynooyaa ardada ma wax qabanayaan doodahooda see waay yaa wax soo jeedi كان واحد جيدي direct indirect أما توس أما سي أن توس هين مباشر غير مباشر إن لو جاي كري لقى ورقم لقوا نحجره أو حالها observation مركز تنحوجان صارنا أرضاس معلم الربعين الدودان هدو معلم كمال إسكفر يستو شقاء سنقمانين وأرضاس حلا وحضره ويرادو دو سماية كيلو لها مايا waxaa la balan waxaa la rabaa jack si joogto ah waxay inay u sameeyaan oo macalinka uu noqdo muxuu ahaa uu ka warqabo uu la socdo la rabaa waxa kamid ah questioning inuu weydiiyo su'aasha maxay tahay kan maxay tahay su'aalaha uu weydiiyo questioning marka waa maxay lesson-ka waa in su'aal laga weydiin karaa maxaa la jiray chapter-ka waa in su'aal laga weydiin karaa activity waa in la wasaalo weydiin karaa marka xooggan waxaan saaraynaa mar kastaba objectives ma la gaaro hadafkaas explain-ti aan soo sheegnay oo waaga ahayd ma la gaaro power-ki ma la gaaro energy-ga ma la gaaro every objectives marka aan gaarayno waa in ardada aan weydiiyaa waxaan ku laabanayaa objective-kan ku laabanaya hadday explain ahayd hadday describe ahayd hadday solve ahayd hadday use ahayd waa isticmaalaya waa ka jeekaraynaya ma la gaaray qaabkeen uga jeekarayna marka waxaan sameynaa su'aalan weydiinaya macallo waxaa la rabaa aad u dhageyso waxaa la rabaa casharkan sharaxday objectiveskiisa meesha ku qoran haddii su'aalo laga dhigo oo ardayga loo dhiibo uu ka shaqeyn waayo chapterkaas ma fahmin ardayga meesha explain explain what describe solve wixii haddaan qoro macnaheedu waa maxay marka maxaa dhihi jiray waa inuu ardayga gaaraa
marka insha Allah meeshaas marka waxaa noogu dhan grade 9 physics-ka oo ka koobnaa 7 chapter ugu dambeeyay wuxuu ahaa chapter 7 oo ah work power energy and civil machine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmi